muuse waxaan leeyahay intii aad talada qaranka la amban karaysay waad la ambatay garashadaadii iyo xukunkaagii waxa uu dhalay xabad iyo xinjiro dhiig leh oo gudaheenna ah qaxa barakaca dhaawaca iyo dhimashada laascaanood ka socota oo hore dadka reer Somaliland u soo mareen muusena goobjoog u ahaa inuu casharo iyo duruus ka baran waayo oo maanta waaya aragnimo ku baajin kari waayo dhibaatada taagani waxay muujinaysaa koritaan la'aan siyaasadeed waxaan ka xumahay walaacna ka muujinaya dagaalka sokeeye ee sababay in qarankeenii ifayey ee aqoonsiga keliya sugayey uu beesha caalamka ka siin karo faham aan u qalmin jamhuuriyadda iyo dawladnimada Somaliland su'aasha ku hortaal waxay tahay meeyay dalkii iyo dadkii midaysnaa ee lagu dhiibay waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan shacbiga reer Somaliland walaalayaal waxa la isku hayo waxa ka weyn waxa la isku yahay nin walaalkii geed ugu jira geesi noqon waa inaad godob ka faantiyo kala daa gareexad tala xumo run weydaay rag sidaad u weyda waxaynu isku khilaafsannahay dagaalka barakaca iyo dhiigga sokeeye ku daadanaya magaalada laascaanood ma aha wax la aqbali karo waana xaalad murugo tiiraanyo iyo urkutaalo leh oo ummadda reer Somaliland oo dhamme ka xun tahay ugu horreyn waxaan tacsi u dirayaa intii nagaga dhimatay colaadda laascaanood ee weli sii socota intii dhaawacantayna ilaahay baan uga baryayaa una weydiinayaa caafimaad sariic ah inta maanta nool aynu u talinno dhan kasta kii naga dhintay waa kaa dhimay oo kugu dhimay waxaan u arkaa dagaal sokeeye oo aan ahayn laba dhinac oo mid la dhex dhigay ummad mid ah oo aan meelna kala tegayn laascaanood waxay noola mid tahay boorama hargeysa berbera burco iyo cergaabo xaaladda laascaanood ku sugan tahay waa mid aan fadxad gelinayn qof kasta oo inaga mid ah qof ahaan anigana si gaara ayay ii damqaysaa oo si dhaba ayay ii taabanaysaa waayo dan kasta oo shakhsi ah waxaa igala weyn danta caamka ah dadkayga oo midaysan nabad ah wada jira oo wax wada leh doonista kursiga waxaan ka leeyahay himilo ay ugu weyn tahay inaan hirgeliyo insha allahu Somaliland oo nabad ah walaala ah degan oo ka qurux badan tamaanta waxaan ka xumahay walaacna ka muujinaya dagaalka sokeeye ee sababay in qarankeenii ifayey ee aqoonsiga keliya sugayey uu beesha caalamka ka siin karo faham aan u qalmin jamhuuriyadda iyo dawladnimada Somaliland ee aynu soo dhisaynay in ka badan 30 sano xisbiga wadani sumcad xumada jamhuuriyadda Somaliland ka soo gaadhay dagaalka laascaanood ee maanta taalla miiska qaramada midoobay uma arko arrin la iska daawan karo oo la dhayalsan karo tacabkii nabadda dimuqraadiyadda iyo degenaanshaha ee Somaliland caanka ku ahayd umay qalmayn in maanta lagaga doodo fagaarayaasha caalamiga ah ee xuquuqul insaanka
iyo meelo ka shisheeya qaxa barakaca dhaawaca iyo dhimashada laascaanood ka socota oo hore dadka reer somaliland u soo mareen muusena goobjoog u ahaa inuu casharo iyo duruus ka baran waayo oo maanta waaya aragnimo ku baajin kari waayo dhibaatada taagani waxay muujinaysaa koritaan la'aan siyaasadeed iyo fashil xukuumadeed muuse waxaan leeyahay intii aad talada qaranka la amban karaysay waad la ambatay garashadaadii iyo xukunkaagii waxa uu dhalay xabad iyo xinjiro dhiig leh oo gudaheenna ah su-aasha ku hortaal waxay tahay meeyi dalkii iyo dadkii midaysnaa ee laguu dhiibay muuse waxaan ugu baaqayaa inuu dhegaysto talooyinka samaha sida maankiisana ku hayo su-aasha ah sidee ayay u ekaan doontaa somalilaanta aad ka tegaysaa maxaad raad taariikha iyo legasi kaga tegaysaa oo lagugu xasuusan doonaa dhanka kale xisbiga waddani waxa uu si adag u cambaaraynayaa duulaanka faragelinta ah ee maamul goboleedka soomaaliya ee puntland ku soo qaaday gudaha somalilan xisbiga waddani waxa uu bogaadinayaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan inay iska difaaceen duulaankaas gardarrada ah cid kasta oo dibadda kaga soo duusha nabadgelyada iyo ammaanka jamhuuriyadda somalilan xisbiga waddani waxa uu garab taagan yahay ciidamada qaran wuxuu ku garab taagan yahay ciidamada qaranka difaaca qaranka dadyowga meelaha ka baxsan jamhuuriyadda somalilan ka soo gurmanaya ee qoriga dhiigga leh colaadda laascaanood kaga qayb qaadanaya waxaan leenahay balaayo laysu habar wacdaa waxay keentaa colaad hurta iyo hurgumo raagta waxgaradka odayaasha iyo garaadada laascaanood waxaan u soo jeedinayaa nabad iyo xabad joojin degdeg ah intaynu ciidan iyo qori isku miciinsanayno caqliga iyo garaadka aynu magansanno dhiigga farsamo xumada tala xumada iyo xilkasnimo darrada ku daadanaya waa dhibaato dadsamee ah waanay dhibaysaa guud ahaan quluubta shacbiga reer somalilan ee jecel nabadda isku dhaca colaadda iyo dagaallo naxli dhexdeenna ahi ka dhashaan oo shacabka reer somalilan kala gala waa maradaadu ha kugu gubato xisbiga waddani waxa uu caddaynayaa in bulshada reer laascaanood ay waxgaradkoodu xaq u leeyihiin tabashadooda dood kasta oo ay qabaan waxaanse ugu baaqaynaa inay wada hadal nabadeed loo maro annagoo u soo jeedinaynaa labada dhinacba inaanay xalka ku koobin qori caaradii marka siyaasadda laga tago dadkeennu way wada noolaayeen boqolaal sannadood ilaa iyo inta suurta la afuufayana way wada noolaanayaan sidaa darteed aan dhaayaheena aragti fog ku eegno walaalayaal reer somalilandow ma nihin dad isqaban kari waaya dhaqanna inoomay ahayn ma nihin dad wax kala qaadan kari waaya ma nihin dad dhexdooda dhibta timaada dhammayn kari waaya ma nihin dad miis wada fadhiisan kari waaya oo wada hadal ku baajin kari waaya dhiigga dadkeenna iyo ciidankeenna ka daadanaya balse waxaa dhacayaa iskama dhacayaan waxay u dhacayaan siyaasad xumo xukuumadeed oo maanta haysata reer somalilan
waxaynagu waajiba culimo iyo ciroole iyo waxgaradba inaynu u guntanno sidii aynu u dhayi lahayn dhaawacyada muuqda iyo kuwa qarsoon ee quluubteenna gaadhay waxay dhegaheennu maqlayaan waa dhiilo waxay dhaayaheennu arkayaan waa dhibaato xisbiga waddani xalka maanta taagan xabad uma arko waxaan bulshada reer somalilan iyo beesha caalamka u caddaynaynaa mowqifka xisbiga waddani ee dagaalka laascaanood inuu yahay nabad iyo wada hadal waa intii aanu ku bilownay subaxii dagaalku qarxay waa intii aanu ku talinnay iyadoon dhibkani halkaas gaadhin waa midda aanu ka shaqaynayno siina wadi doonno inaanu ka shaqayno waa waajib in la kala saaro qaranka iyo qofka danta qaranku kuma sidkana qof gaara ama koox gaara nabadda midnimada wadajirka amniga xasiloonida iyo horumarka dalkeenna iyo dadkeenna ayaa ka mudan in qof lala miisaamo ama lagu dhereriyo walaalayaal anigu isdhuldhig la'aanta garowshiya la'aanta ballanka baxa iyo tanaasul la'aanta uma aqaan dhaqan wanaagsan oo hoggaamiya ku sifoobo isu bahalagelinta dadkaygana badbaado uma arko walaalayaal go'aanada qaldan ee hoggaamiya qaato ayaa laga dhaxlaa burbur ummadeed sida taariikhda lagu hayana dawlado badan oo qaaradda afrika iyo adduunka ah ayaa ku dumay kuna lumay talaxumo sababtay in dadkoodu ku baaba'aan oo ay ku barakaceen isla markaana ay noqdeen qaxooti duruufo adag iyo dayac baahiyeed haleesho si dhibtaas oo kale somalilan uga baaqsato maanta waa maalintii loo baahnaa in caqligu shaqeeyo ma aha maalintii aynu cudud isku muquunin lahayn walaalayaal waxaan caddaynayaa in xisbiga waddani uu si buuxda u taageersan yahay erge kasta oo nabadeed oo isu xilqaanta deminta colaadda laascaanood maanta dalkeennii somalilan waxa uu marayaa laascaanood oo dhiig ka daadanayo iyo intii kale oo khilaaf baahsani ragaadiyey waxaan u taagnahay xal kasta oo nabadeed inaan ka qayb galo oo hormuud ka noqdo waxaan mar labaad u taagnahay anigu rajo kasta oo lagu abuurayo dib u noolaynta midnimadii wadajir